بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan noo farxad ah in maanta barnaamijkii Soomaali wiignoo bilaabmay alxamdulillah rabbil caalamiin waa la isku wada yimid cid martidii oo dhan iyo cid kastaba iminka waxaan galeynaa saaladii iyo barnaamijkii sidoo noogu bilaabmay baa bilaamasa waxaan salaamayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay cid kastaba ha ahaato gaar ahaan qolinka madaxda ee wada barnaamijka aad baan u salaamayaa waa aniga iyo asxaabteedii ay ag taagan waxaan leenahay si fiican barnaamijku noogu socdaa ugu bilaabmaya oo noogu dhamaan insha Allah aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin taageerayaashayada markaan leeyahay waa anaga iyo Cabdicasiis meel kasta joogtaan cisiyo sharaf ku noolaada waxaanu ka soo bariyahan aanu joognay London Soomaali wiiga oo maanta la furay aad baan u mahadsantihiin baan leenahay hadalka waa la iga lahaa Cabdicasiis baa igaga horeynaya isagaan horta ku soo dhaweynaya ha hadlo kadib aan hadlaya aniguna محمد إلى شلة وادي الريحة يستمر بانون بعد السنة محمد سعيد عبدي بيكي وما تسنتها ولا له فنان سوماليات ومدة الصوماليات أو رن فنان وهويه فنان عد كسلة عليها هويه فنان مخام سريع كتشوغ فنك أنا أوريتشين إن بدنا وكلنا إنه إلهي نوداي أو كسيجاره ولا الحبيب وقلبي في عويه محمد سعيد عبدي بيكي Thank you وفنان سيجون يعني صاحبه ونهاي فنانين الصوماليين لأن أي صاحبيهن ملوا البيت شوغان تاسوا أنت محمد سعيد وحنا كان مهد قارة وعلنيا أنا جو عبد العزيز محمد سعيد بيكي إذا ما نبغانين تيدا أو مدنا الله ورئيسنا دونا مهم كالد هالقانوني ما أنا جو قارة ذكر دون كنمي أفريقيا نورث أمريكا يوروب انتبه aniga khaasatan daan iska hadlo anu North American ka imi Canada ka imi waxaan u imi Somali week oo sanadla ah muddo hadda ilaa 10 sano hadaysan ka badnayna socday waxaan kamid ahay dadkii Ilaahay nasiibka u siiyay inuu qayb ka noqdo waan uga mahadcelinayaa Kate oo mar walba ah una taagan isu aruurinta murtiyahanka iyo artistaha Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada intaba meel walba ay Soomaali gamagayga Soomaali ha noqoto ama ha noqoto caalamka intiisa kala kala jooga sanadba sanad ka dambeeyana wax ku cusub oo midnimada Soomaalinimada isu imaanshaha is aruurinta afka Soomaaliga dhaqankeena iyo culture-keena ururisa sanadba sanad ka dambeeyana wax ka si fiican sameynaysa nasiib bay aniga ii tahay waan uga mahadcelinayaa inay caawin kulan siiso Maxamed Saciid Cabdi Bikay عبد الله حسن قري سعيد صالح قرايو مقعيدة عن كوبي كريندي الصوماليات في الميكريس انت أصدقنا وحا أمانت هذه مدنانت هذه سكالة كيت oo dad Soomaaliyeed khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo ay ka go'antahay midnimada iyo sukeenida iyo aruurinta ummadda Soomaaliyeed farxad gooniye ay tahay farxad gaar bay ay tahay la kulansha ahaanta fanaaniinteeda Soomaaliyeed walaalkay Maxamed Saciid Cabdi on radio ka wada joogno mid kalena markaanu barnaamijkan aanu qabanay ka bacdina de opportunity kale noo tahayo ummadda Soomaaliyeed ee Maxamed Saciid Cabdi fankiisa jecel يا عبد العزيز يا أنا كيجبا يا عبد الله أبوان كيده هسه أنا قادنا أنا محمد بله كويه جوجون أكسي قيب كم ده قيب عبد الله حسن قري واتقرنا إنسان مرنا ده حسن قري وتقانين أبيسيا مرنا عذر كاهن لبدا قفوا ميسان كعذرتين سومالو كل إسكت لين إسنا إلهي كده جدنين كإلهي هيبت داسوسي ما شاء الله أنت الصومنان يا مهات سنان يا شرف يا كرامة بيسوي من شاهيجا يود شوقتان كيجا يوحد قبض كيجا ونول ليه فرحت جوني أي كواد إلا بعد استحد أنا قلتها هذا ما يقول حنكون رجينا محمد سعيد عبدي تقول لي عند ون ليجند بيكي أد بدو ما سنتاي عبد العزيز واحد شرطة واحد نشوف أبوان دلي عبد الله حسن قني بو قالي أنا وصفر يا هدي لا يلاحظه بو جاو حدوني يا إن عبد العزيز سو مع ضدكنا آخرين إننا قلنا إنه آخرنا بو جاو حلا ذا جرشوا بل هذا الكي قرتها يقول شري عبد الله ينوديبو ما شاء الله بعد ما سنتهاي لبا فنانو قالي با إنلا جوجا أو كسو قيب قلي محل هذا Somali Week Festival ومحل وبيكي سكلاتش وماذا حمل كسر رسالة تابتا يعني مجران
maxaa la haddaan intaa ka soo gudbanaa waxaan isku nimid oo barnaamijkii Somali Week Festival oo dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo istirka Soomaalinimada lagaga hadlo afkuna sidiisaba waxa weeyaan waxa ummad ka dhiga ee weeleeya ummad ka dhigay waxa weeyaan waa afka hadday ummaddu afka si bedelo af kala barato ummad kale noqonaysa qoomiyad kale noqonaysa marka waxa weeyaan waa halkaynu muxuu ahaayay waa halkii la wada lahaa waa halkii naga dhaxaysay waa halkaynu kaga duwanayn qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha adduunka oo Soomaali la yiraahdo ka noqonay marka barnaamijka qiimaha leh inaan ka soo qayb galo oo waliba kala soo qayb galo rag maxaa la yiraahdaa fanka heer sare ka gaadhay oo aanu saaxiibanahay aad iyo aad bay farxad galinaysaa aadna u maasantiin imikana waxaan ku celinayaa the one and the only aad oo maasantiin waan ku faraxsanahay Cabdullaahi Xasan Ganay iyo macallimiinta la ismacaasiye codku waa u dhalasho hibu ilaahay u siiyay ma sha Allah iyo laxanka iyo maskaxdaba Cabdicasiis cisiya sharaf ku noolaada meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed qalbigaan idinka salaamayna aniga iyo Somali Week waxaanu leenahay dib iyo horeba nagala socda ma sha Allah Cabdullaahi Xasan Ganay ma rabay heesan sameeyay oo ay doonayso inay la qaado farxiye kaba yare bal islaha ummadana tus isaguna ka tijaabiyo iyadoo ummadda arkaysa sida anoo Toronto iyo Mareykan tareen iyo diyaarad raacin farxiyaan tigidh goosan anoo tacadiin jacaylka tahriib magafana u marin waxaan ku tashaday anigu tog dheer qardha iyo galgala tale ikhlaaska iyo gaacid tog wajaale laag daaliya carmale dalxiis arooska ugu tuma taalada nolosha iyo jacaylka ayaa talahaan u fiican baan intii midhahayagaan sameeyay inta iyadii baa oranaysa tusaalaha aad digtiyo tubtaadii hagaajisay tiriigu ka baxay ee shidan tixgelintiyo quruxda badan qurbe lama tartamayee aday tala ka godaaye goormaan soo talaabsadaa telefoon iyo WhatsApp iyo Snapchat jacaylka ma tarin kare raxmaa bayna taakulayne taashki iyo meherkana xidhaa ma sha Allah aad baa maasantiin meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed waanu hambalyeynaa inta af Soomaaliga ku hadasha Puntland Somaliland meel kastaba ma sha Allah ma cadaanka bartay aad baa maasantiin ma sha Allah 26ka waa soo xidhaynaa Somali Week madaxaynu ku ciyaaraynaa kadibna waanu idin soo sheegaynaa buugga Cabdullaahi Xasan Ganay ee garasho Cabdicasiis maxaad oran lahayd Cabdullaahi sidaan kugu onqob miyaad igu olashaa Cabdullaahi baa horta sameeyay miisaanka Cabdullaahi Soomaalidu ama dadka jiraba waxyaalo badan oo iska dhaxlin ayaa jira except dad Ilaahay nasiib u siiyay Cabdullaahi Xasan Ganay cadar Ilaahay cimriga dheereeyay Xasan Ganay baa iska dhalay isna waxa intaas soo baa Ilaahay hibahdana u siiyay murtidii iyo wixii badnaayo abiis lahaa fan dhalay iyo murti dhash buugaas marka wax badan baad ka dheehan doontaan ma sha Allah abwaanku wuxuu igu sii diray hees anigu heesaygii hadda koor baa waxa heesay nin la yiraahdo hees waxa jirta uu sameeyay Line Reach Commodores maruu ka tirsanaa heestaas hid ma noqon waxa qaaday arninka cadaanka ahaa Lady baa la yiraahdaa heesta macna markuu ka hadlayo waxay noqotay turning point of my life macna heestii uu isagu ku soo noqday waayaha iyo wacyiga heestii ugu horeysay oo qaado ugu horeystay heestii sidaan kugu onqomiyaad kugu igu olashaa bay qayb ka tahay hadda markay taas ku jirto in badan oo ka murti iyo maaragtay miisaan culus oo kale ku jiraan Cabdullaahi waa nin yar abwaan kaliya waa nin aqoon-yahana waa nin han badan ka qaba inuu la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa nin badbaadinta dalkeenni iyo dadkeenni iyo dhaqankeenni oo han kaga jiro bride-na ah marka waxaan idin ka codsanaynaa each and every one of you bal inaad aragtaan murtida iyo waxa qiimaha iyo sharafta leh ee ku dhex jira buugaas inaad nala aragtaan Cabdullaahina waxaan idin hubaa inaydan waxaan karaamo ahayn iyo aqoon siyaadaha aan ahayn inaan kala kulmin Cabdullaahina waxa leenahay aqliga garashada Allah ku saacideeyo